Ronaldo wuxuu la kulmay jawaab adag kadib markuu dhaleeceeyay xulkiisa qaranka Portugal. Sheekooyin kala duwan oo soo qaadan doona saaxiibayaal oo qayb ka yahay maxay isku dagaaleen Ronaldo iyo saaxiibadiisa xulka. Ronaldo ayaa hadalla dhaleeceyn u jeediyay xiddiga xulka qaranka maalintii Isniinta ah si la mid ah sida kabtanka England Harry Kane, hase yeeshee mid ka mid ah ciyaartooyda ayaa si cara leh uga jawaabay. CR7 39 jir ah ayaa muujinayay jabkiisa isagoo sheegay inuu ka xun yahay ciyaartooyda aan doonayn inay ka qayb galaan kulamada Nations League. Portugal ayaa kula jira loolan adag xulka Poland iyo Croatia iyagoo hogaaminaya gruubkooda 3 dhibcood kaliya. Xiddiga daafaca Nuno Mendes oo ka mid ah xiddigaha kula ciyaari doona Poland garoonka Stade Dragao Jimcaha ayaa si cad u muujiyay inuusan raalli ka ahayn hadalka kabtanka isagoo jawaab ka bixiyay hadallada Ronaldo. Dib guulaha badan iyo kooxaha kala duwan ee aan u ciyaarnay ma jiro wax ka wanaagsan ka ciyaaridda xulka qaranka, bedelidda dalkeena, dhaqankeena iyo carruurteena. Taa waa sababta aan uga niyad jabsanahay qaar ka mid ah ciyaartooyda aan doonayn inay matalaan dalkooda, ayuu yiri Ronaldo. Markii la weydiiyay hadalka Ronaldo, Nuno Mendes wuxuu si cad uga jawaabay isagoo leh qof kasta wuxuu leeyahay aragti, aniga waxaan ka hadli karaa naftayda, oo muusan ku qancin hadalka ka soo yeeray CR7. Dhinaca kale, Manchester waxay ka walacsan tahay maqnaanshaha muddada dheer Lisandro Martinez oo dhaawac sinta uu soo gaaray. Manchester ayaa ka cabsi qabta difaaca Martinez oo muddo dheer maqnaaday garoomada kadib dhaawac soo gaaray. War soo baxay ayaa muujinaya 26 jirkan uu ku laabtay magaalada Manchester kahor inta uusan ka qayb galin tababarka xulkiisa. Martinez ayaa qayb ka ciyaar 3 gool Manchester kaga badisay Leicester Axaddii inkastoo uu ciyaaray isagoo xanuun dareemaya. Wararka ayaa tilmaamaya inuu shaki ku jiro tamaanshihiisa kulanka BL-ka ee Ipswich Town. Martinez ayaan la ogeyn xilliga garoomada kusoo laaban doono. Dhinaca kale, fanaanadaha Miza ayaa laga mamnuucay garoonka iyadoo Paraguay isku diyaarinayso kulanka Argentina. Macalinka xulka Scaloni wuxuu dareemaya in mamnuucidda aysan shaqayn doonin. Waxaa la qaaday tallaabo lama filaan ah oo ka horeysa kulanka Argentina. Paraguay mas'uuliyiinta ayaa mamnuucay taageerayaasha inay garoonka la galaan fanaanadaha ay ku qoran yihiin magaca Messi. Saamaynta weyn ee Miza ayaa la arki karaa iyadoo Paraguay mamnuucday fanaanadaha ay ku qoran yihiin magaca xiddiga Argentina. Intuu socdo kulamada reeb koobka adduunka, labada xul ee dhexmari doona Argentina ayaa kula ciyaari doonta Paraguay garoonka Del Chaco Khamiista. Kahor kulanka reebka koobka adduunka 2026, agaasimaha kubadda cagta Paraguay Fernando Velasco ayaa ku dhawaaqay in cid kasta oo xirata fanaanada qaranka Argentina, kooxaha kubadda cagta Argentina ama kooxaha kale shisheeye oo magaca Messi ku qoran tahay loo ogolaan doonin inay galaan garoonka. Lama ogolo cid xiran fanaanada xulka qaranka Argentina, kooxaha Argentina ama koox kale oo shisheeye ah. Waxaan doonaynaa in garoonka lagu xardho midabada xulka iyo ciyaartooyda si ay u helaan taageero buuxda. Sharcigan ayaa si gaar ah loogu talagalay inuu bartilmaameedsado taageerayaasha xiran fanaanadaha magaca Messi. Sharci la mid ah ayaa la isticmaalay markii Paraguay martigelisay Brazil. Taageerayaasha laga mamnuucay fanaanada Vini inay garoonka la soo galaan. Tababaraha Paraguay Gustavo Alvaro ayaa sheegay inuusan wax shaqo ah ku lahayn sharcigan. Anigu wax shaqo ah kuma lihi mamnuucidda fanaanadaha, waanan ogeyn wax ku saabsan taa. Waxaan u maleynayaa in ujeedadu tahay in la yareeyo fursadaha isqa qabsiga suurtagalka ah. Messi fanaanadiisa in garoonka la soo galo oo ay diidan yihiin Paraguay. Madrid iyo Liverpool ayaa leeyahay isku afgaranayaan saxiixa Alexander Arnold si laga soo xigto Marca. Arnold waxaan ku caawinta gool cajiib ah ciyaarista dhanka difaaca midig ee lafdhabar ah Liverpool sanadii ugu dambeeyay. Liverpool ayaa u muuqatay inay diyaar u tahay inay ogolaato inuu baxo xiddigan intuusan dhicin heshiiskiisa ama uusan dhamaan heshiiskiisa. Qodobka ugu muhiimsan laga wada hadli karaa ayaa haddii Madrid la wareegayso daafaca ka hor suuqa iibsiga, labada naadi lagu soo hormayn rajo ka qabaa inay gaaraan heshiis faa'iido ah oo labada dhinac ah. Dhanka Liverpool, tallaabadan ayaa u soo jiidi karta dhaqaale badan lagu xoojinayo kooxda, iyagoo raadinaya dib u habeyn ku sameeyaan kooxdooda xilli ciyaareedka soo socda. Qodobkii ugu soo jiitay